filla Soomaaliya ka socda iyo maaragtay garoonka waa qorshe lagula dirirayo beesha Mareexaan waxba waqti ah gelin nimankan direed ee masaakiinta ee xasharaadka ee meeshan jooga iyo nimankan habar gidir oo riixayo dagaalku waa ka mug weyn yahay waa ka culus yahay waa ka siyaasad weyn yahay qorshaha socda waxa laga yaabaa inaad la yaaban tahay in diyaaradihii caabud waaq loo joojin karo wiilal muuqaalo iyagoo god ku jira meel 50 kilomitir caabud waaq u jira muuqaal ka soo duubayo haddii taasu ay ku joogsamayaan diyaarad cadaado Mareexaan wuxuu u jiraa 18 kilomitir buu u jiraa maan joojino garoonka cadaado qorshahan waa mid weyn waa mid sal weyn waa mid Mareexaan lagula dirirayo xasan waraysi buu baxsha wuxuuna ku sheegay in gobolka Gedo la haysto xasan wuxuu aaminsan yahay meel kasta oo Mareexaan leeyahay in la haysto ayuu aaminsan yahay inuu xoreysto rabaa marka cidda uu ka xoreynayo anigu ma aqaan nimanyo marka update-kii ugu dambeeyay ma rabaa inaan idin siiyo shay ka socota dawladdii baana taageerayso marka Mareexaan waxa lagaga baahan yahay isku tashi iyo inay tashadaan inay cadawgooda ogaadaan baa loo baahan yahay dawladdii baa shaqaynayso dagaalamayso wasiiradii baa shaqaynayso agaasimihii garoonka shaqaynayo ku-xigeenkiisii baa shaqaynayo diyaarada aan leenahay ma ahane waa kuwa hawiye leeyahay oo ay ku dagaalamayaan marka nimayow kolley qolooyinka Mareexaanna waa kaceeno diyaaradii ay rabeen inay soo gataan waliba laba diyaaradood baa la ii sheegay Mareexaanku inay maaragtay lacagteedii la shubay inay meel dhex marayso marka diyaaradahaas intay noo imaanayaan waa sii jahaadaynaa midda kale waxaan rabaa inaan idiin sheego oo aan xogta idinkugu daro in xasan sheekh maxamuud uu xalay hadlay inuu sheegay in gobolka Gedo inay haystaan Itoobiya in garoomadii gobolka Gedo in lala wareegay waxaana socdo qorshe la doonayo warkayga ha dhayalsan waxaa socdo qorshe la doonayo in lagu hakiyo diyaaradaha tagi jiray Muqdisho oo garoomada gobolka Gedo dhamaantood lagu xiro nimanyo warta dagaal adag baa socda qorshahaana waa qorshe filla Soomaaliya ay wado oo la maal galiyo daaroodoo dhan in la go'doomiyaa la rabaa Puntland waxa lagu dhigay waynu aragnaa garoonkii weynaa ee Goldogob laga furay maaragtay beesha leelkase tanada daarood waad aragteen oo waa la xaniba oo niman baa xanibay garoonkii caabud waaq waa aragtaan hadda laga shaqaynayaa sidoo kale waxa la xirayaa dhammaan garoomada gobolka Gedo qorshe lagu xirayaa socdo maalmahan soo socda albaabada la isugu laabi doonaa dawladu kama jirto xasan dawladii dalka Soomaaliya waa burbudhay qabiil bay noqotay xasan qalinkii iyo calankii Soomaaliyeed ayuu rabaa inuu ku dagaalamo sunniyuhu xiirtay ma xishoonayo beeshiisuna ma xishoonayso waxaan leeyahay marka beelaha daarood hadda wasaaraddan duulista gabar leelkasaa baa joogta garoonkii Goldogobna waa xiran yahay wasiirkii maaragtay amniga annaga haysana garoonkii caabud waaqna waa la xira garoonkii Goldogob waa la xira dagaal adag baa socda siyaasiyiinta iyadina waa hurdaan waxaan leeyahay siyaasiyiinta Mareexaan ee Muqdisho joogta adeerayaal isaga soo taga dawladu ma jirtee kuwa galmudug ku jira waxaan leeyahay isaga soo taga dagaal safayna bilaamahayo waa la iskufsanayaa hubba la isku adeegsanayaa ninkii laga tabar badan yahay waa lagu tumanayaa wallaahi billaahi tollaahi inaysan galmudugna dhisnaanayn dawladda Soomaaliyana aysan dhisnaanayn calanka Soomaaliyeedna inaan Mareexaan lagu dulminayn Mareexaan marka maxaa looga baahan yahay wanimayo waxba waqti ha gelinina nimankan culimada oo masaakiinta oo caruurta noo gudi jiray oo xasharaadka oo tuuriyada oo la adeegsanayo oo futada habar gidir ku jira oo baabuurtii habar gidir wata oo laga hadalsiinayo oo maaragtay aan macnaha lahayn nimankan masaakiinta inta iska deysaan culimada oo maaragtay wixii bunkooda iyo waxooda hay iska duudaane dagaal baa socda dagaal hawiye ay ku midoobeen baa socda nimankan masaakiintaana niman la qalday weey in la jaraa la rabaa inaan dhammaynay rabaan baabuurtaasna aan ka qaadano ayagana inaan koonka ka tirtirnay rabaan il iyo ilaacay leeyihiin nimanka dirtaayo masaakiinta oo nala degan oo la soo adeegsaday oo aan waxba kala garanayn
nimankaas inaan markaan baabi'inno inay dhulka ka qaataan oo dhaxlaan bay rabaane ilmaadayaalow mareexaanow nimanka masaakiinta oo inta baabuurta loo dhiibo hadba nagaar inta la geliyo godka ku jiro la leeyahay hadla oo fariin dira inta iska dayno dagaalkan habar gidir baa wada waa dagaal safayna waa dagaal irir oo dhan uu ku midaysan yahay waa dagaal filla Soomaaliya laga wado aan u midowno maxaan uga hortagi karnaa qorshahan in diyaaradihii la joojiyay maxaan uga hortagi karnaa waxaan uga hortagi karnaa qof hal naaskeed gaaro oo mareexaan waa inuu qorigiisa qaataa waa inuu difaac u diyaar garoobaa iyo dagaal iyo weerar sidoo kale siyaasiyiinteenu waa inay maaragtay dhagahooda ay taagaan oo digtoonaadaan oo inta ay kuwaasi xuni ay sameynayaan in ka badan inay sameeyaan oo dharka tuurtaan oo dagaalamaan oo siyaasadooda ku dagaalamaan sidoo kale qurba joogta waxaa looga baahan yahay midnimo iyo isku xirnaan iyo inay la yimaadaan qorshe aanu uga hortagi karno wax kaste oo la damci karo qorshahaas muxuu yahay inaad adinku midowdaan in mareexaan midoobo in maaragtay la isku yimaado in maaragtay diyaarado la samaysto annagu aan leenahay oo aan cid kale noo munaafaqadaynayn inaan duuliyaal leenahay in maaragtay dhan walba aan iska qalabayno inaan aayaheenna ka tashanno inaynu maaragtay annagu aanu isku caloolfiyoobaanno inaynu mareexaannimada aynu wada difaacanno inaynu ayada ku wada dhimanno haddii mareexaan midaysan yahay meeluu joogaba awood dhaqaale oo weyn oo aan la dhayalsan karinna waa yeelanayaa cudud ciidan oo aan la xaqiri karin oo dalka Soomaaliya lagu xoreyn karo oo lagu qaban karana waa yeelanayaa magac iyo maamuusna waa yeelanayaa waxaa la rabaa midnimo mareexaan in laga wada shaqeeyo qof kaste oo mareexaana ilaa mareexaannimada kama saari karno si kasta oo u xumaado haddaan siyaasi hebel soo caayo siyaasi hebel reerkiisana aniga ay soo caayaan taas mareexaan baa ku kala fogaanayo wax allaala waxaan isku qabnay nimanyow inta iska dayno qadiyadda mareexaan iyo dadnimada yadu ha nagala weynaato oo labadii shalay isdagaalsanaa oo mareexaanka ahaa maanta qadiyadda ha ka wada shaqeeyaan isku kursi ha fariistaan dagaalka ha soo wada galaan ha loo midoobo bahashan dir iyo reer dalal waa soo dhaafta dir iyo surre iyo reer dalal iyo waxaasoo dhan waa ka soo gudubta bahashan waa safayn dagaal culus weeye beelihii galmudug oo dhan baa dagaalkan ka qayb qaatay oo ku jira waa mid federaalku ay wado waa mid la raba in mareexaan loogu soo duulo xasan ciidamadii dawladda uu adeegsanayay waa u socon waayeen marka beelihii buu soo hubaynayaa ciidankii dawladdu ku daraya hubkii shalay la keenay oo daraad la keenayay ayaa la geeyey goobaha dhammaan furimaha mareexaanka lagula jiro dhammaantood hubkaasaa la geeyey walaalayaal dawladdii Soomaaliya waa burbudhay gado iyo jubbooyinkana weerar baa lagu yahay galgaduud iyo galwaaqna weerar baa lagu yahay dawladdu meel kaste oo mareexaan joogo waxay u aqoonsatay meel cadow joogo hal tusaale ayaan rabaa inaan idin siiyo oo fudud oo aad wada fahmi kadhaan gobolka gado iyadoo ciidamo la geeyay federaalka oo dawladihii shisheeye laga xoreeyey oo tignika la geeyey oo gobolku uu xor yahay ba xasan sheekh maxamuud xukunka qabsada in la isku gardhigto way wanaagsanta ummadda Soomaaliyeedna warkayga dhageysta oo si fiican u dhuuxa muuqaalkana sii sheer gareeyay iyadoo gobolka uu xor yahay oo Kenyaatigi laga saaray oo meel walba ciidan dawladeed uu joogo oo xaduudka aad loo sugay oo Itoobiya aysan tilaabo soo gelin karin gobolka Gado ayaa xasan sheekh maxamuud yimid xasan markii uu yimid waxaanu ka rabnay dadkii reer Jubbaland inuu nabadeeyo Axmed meesha ka kaxeeyo tabashada reer Gado aqbalo shirar dib u heshiisiina la qabsado sida loo midoobo isagoo caradii farmaajo uu qabay qaba iyo carab mareexaan ayaa wuxuu sameeyay inuu amray dhammaan ciidankii dawladda ee Gado joogay in laga soo qaado sidoo kale laba baabuur oo tignika oo taalay oo kaarayaala diyaarad buu ku soo rarto waa soo qaado garoonka doolo buu ka soo wada deegaanadii iyo goobihii ay ka baxeen ciidankii dawladda oo tignikada laga qaaday Itoobiya soo degtay dadkina waa u riyaaqeen sababtoo ah nimankii argagixisada ahaa baa imaan lahaa haddaysan ayagu imaan
saasay garoomadii iyo deegaanadii muhiimka ahaa oo laga saaray ciidankii dowladda ay u qabsadeen xasan marka xala wareysi buu baxshay wuxuu yiri gobolka Gado waxaa naga haysatuu yiri Itoobiya gobolka Gado isagoo xor ah Soomaha kii shalay uu maaragtay faarayaasha ka qaadayay baabuurtii ka qaaday ciidankii ka qaaday yuu ku haleeyay shalay gobolka Gado ma baahi uu shalay u qabin ayuu maanta u qabaa gobolka Gado ma cadaawadii uu shalay u qabay yaa ka baaba'day oo jacayl buu maanta u qabaa mise dana siyaasadeed buu ka arkay waxaan oran karaa dana siyaasadeed ayuu ka arkay Gado uma baahna qorshe kale oo lacag ku soo qaatay ayuu xasan rabaa inuu Gado ka fuliyo mana soconayso reer Gadana waa baraarugsan yihiin waana faansan yihiin marka mideeda kale hal midaan ku sheegaya wuxuu dajiyay oo uu wadaa xasan sheekh maxamuud in garoomada gobolka Gado oo dhan xayiraad la saaro oo hal diyaarad ay ka degin taasi Soomaha cunaqabataynayo beel gaar ah gobol gaar ah iyo dad gaar ah taasi Sooma cadaynayso cadaawadda madaxweynuhu uu beeshan u qabo haddii ay ahaato galwaaq iyo galmudug iyo haddii ay ahaato Gadaba soo cadaawad maaha mideeda kale haddii Itoobiya lala dagaalamayo oo dawladdu ay Itoobiya ku dhacsan tahay magaalada la yiraahdo Baydhabo iyo Koonfur Galbeed bay iyo Bakoolba waxaa jooga ciidankii maaragtay Itoobiya jooga waa looga banaan baxaa waa looga dabaaldegaa sawirradii iyo muuqaaladii aragtay baa la soo faafinayay dad reegada oo ku faanayo Itoobiya ama muuqaal ka soo duubaya maanan arag maxaa keenay marka inaan Koonfur Galbeed la weerarin oo garoomo laga xirin oo la aadin oo reer Gada la aado ma reer Gada reer Koonfur Galbeed ka jilicsan ma reer Gada reer Hiiraan ka jilicsan maxay tahay in la bartilmaameedsado bar walba oo mareexaan dego maxay ku dhacday oo ay ku suurta gashay waa jilic annaga dhankayaga ka yimid iyo cadaawad oo xasan qabawa duulaan qaawan oo dawladaysan ayaa socda garoomadii gobolka Gado oo dhan diyaaradihii baa laga joojiyay dadkii la yaabanaa garoonka Caabud waa sababta loo xiray dad baa waxa laga yaabaa oo faafinayo oo faafrikeynayo wiilal yar yar oo xiiran oo baadiyaha godad ku yaala baabuur la taagan oo muuqaal soo duubay yaa garoonka Caabud waa u xiray uma xirna cadaawada ay dawladda Soomaaliya qabto u xiray garoomadii gobolka Gado oo dhan waa la xiray Caabud waana waa lagu dar meel walba oo mareexaan degana waa la xiraya waana duulaan dawladda xasan sheekh maxamuud ay wado iyo bartilmaameed reeraysan weey waan ognahay wax socdaan ogna iyadoo garoonka Dhuusamareeb ay hoobiya saa ugu dhacayso oo la duqeynayo ayaa laga degay hadda marka Itoobiya loogu marmarsiyoonaya Gado waxa la yiri waxa haysata Itoobiya haysata oo gobolka dhan oo Gado Itoobiya dhacday uu xasan xalal la shirtagay oo uu ku hadlayay oo media ka hadlayay bay iyo Bakool ma soo hadal qaadin Hiiraan ma soo hadal qaadin waa Gado bartilmaameedka xasan barta uu rabo oo la dagaalamayo waa maaragtay waa meel walba oo mareexaan dego waxaan leeyahay xasan iyo dawladdiisa iyo maamulada kale intaba waxaan u sheegayaa war mareexaan iyo farmaajo iyo siyaasadda iyo cidda necebtihiin kala saar inagu awoodna waa haysanaa cududna waa haysanaa haddaan midoobno baabuur iyo tiknika nagu filan iyo ciidan nagu filan waa haysanaa inaan dawladda Soomaaliya iyo beelaha ay soo hubaysay intaba waa iska dhicin karnaa waanan iska dhicinaynaa waanan dagaalamaynaa cagtaanan marinaynaa awoodeenu waxa ay noo geyso baynu ku qancaynaa marka waxaan leeyahay waxba yaan naloo dawladayn waxba yaan calan dheer naloo qaadan waxba yaan dawladnimo naloo sheegan mid maamul iyo mid dawladeedba hala bareero oo maaragtay hala adeegto mareexaanna waxaan leeyahay walaalayaal waad aragtaan waxa socda waad aragtaan indhihiina ayaa macalliniya haddaad sheekh leedihiin haddaad shariif leedihiin haddaad siyaasi leedihiin waxaad dhowrataan male dalkan waa burburay gacan qabiil buu galay nin maaragtay cadaawad qabiil qaba oo nacayb ka buuxo oo aan madaxweyne Soomaaliyeed u qalmin oo cadaawaddu ay biyo dhigtay
oo ma aragtay sunniyaha xiirtay ayaa dalka madaxweyne ka la dagaalamaya in la iska dhiciyo dawladu ma jidho dawladii oo dhan waxay ku soo koomatay shabeellooyinka ku soo koobatay iyo caliyaal iyo inta abgaashu ay joogto iyo habar gidirta ku soo koomat dawladu ma jirto waa aragtaan Puntland waa la diriraya duulaan baa lagu yahay waxbaan laga qaadi karin oo waan lagu dhicin laakiin inaan midowno oo wax samaysano oo diyaarada haday tahay iyo garooma haday tahay iyo ma aragtay dawladnimo iyo magac iyo sharaf iyo cid walba oo anagu aanu ma aragtay danu naga gasho inaan la macaamilno meeshii aan dawlad ka sugayno aan dawlad ka suglayn oo ku ixtiraami lahayn baa aniga ila wanaagsan cid walba oo ma aragtay oo dalkan imaanayso inaan la macaamilno wax iyaga gooni u qaadano dawlad halka degan noqono go'aanka iyaga iyo masiirka iyaga intii dawlad Soomaaliyeed ay ka dhalanayso hadda qabiil baa ka jira filla Soomaaliya meel shacabka Soomaaliyeed lagu dulmiyo weeye ninkii xoog la xabadka goosanaya waana sugaynaa kale Xasan Sheekh Maxamuud wax yar baa u haray waana samraynaa jalayaal muuqaalkan sii sheer gareeya waa idin salaamaya meel kasta aad joogtaan